casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Right Excellent CV and Professional Portfolio. Kooraskaas oo lagu baran doono qaabka loo qoro amba qaababka loo sameeyo CV-yo qurux badan oo dhinac kasta ka dhameystiran iyo walibana koofradoodii iyagoo wata iyo sidoo kale qaabka loo sameeyo portfolio-da oo loo yaqaano jaantuska shakhsiyadeed amba in qofkan warbixin dhameystiran ka dhiibto sida muuqaaladii uu sameeyay sawirradii uu sameeyay CV-giisa iyo website-ka gudihiisa ku diyaara waana website online aad ku sameynayso CV-gaagii portfolio-du sidoo kale waxyaabaha lagu baran doono kooraskan waxa ka mid ahaan doona in lagu baro qaabka iyo dariiqada interview-ga loo galo iyo walibana etigiska lagaaga baahan yahay dhaqamada isticmaali doonto iyo qaab ahaantaadaba sad iskugu soo diyaarin doontid interview-ga haddaba cidii danaynaysa kooraskan amba u baahan waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga muuqda hadda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلنتي هبون يسكسر نقد مركلة عشر كين صاحب بيان وحين صبرني قيبتي كواد قيبتي لباد ما أنت وحين بلعبنا قيبتي نيست حد قيبتي كواد وحين كبرني قاب كتسي فيو كريت كريسل لهي يولي بنا كورسكن أوف فيو جيسيجود أم بهرني جيسيجود صدق كلا قيبتي لباد وحين كبرني قاب ككفر لتر كلا سميه كفر لتر يسيفي هذا بيجو حويان شيء قريسو asa hard copy inaad u qaato amba inaad ku dirtid PDF iyagoo aad meeshii aad u dirtid email ugu dirtid laakiin iyagu mar walba shaygaasi waa hard copy laakiin se waxa jira shay aan hard copy ahayn oo project lagu dhex karayo shaygaasi muxuu yahay CV-gu waa shay la qoro waxaasan yaqaanay waxaasan aqaanay sidaasan ahaa bariwan halka ka soo shaqeey laakiin portfolio-du waa intaaba shay ka gedisan talo muxuu kaga gedisan portfolio-du waxa weeyaan itus oo itaabsi halka qofka maanta uga sheekeyn lahayd waxa ka qalin jabiyay jaamacadda Hiblaayo shahaadadii jaamacadda abad meesha soo dhigaysa muddadii waxaad ku hoos qori doontaa muddadii aad ka baxday iyo muddadii aad dhigaysay intii oo dhan qofku markuu arko waa shay riyaliya laakiin markii hore waxa iska ahayd shay sheeka bari hore halka ka baxay bari baan halka ka shaqeeyay laakiinse taana interview-ga iyo waliba certificate-ka in la weydiiyo ayaa CV-gana ku soo raacaysa oo CV-ga marnaba qofka kuma qiyaamayn karaysid haddaba portfolio-du maxay tahay bal waynu in badan baynu soo sharaxaynay bal imikana aynu dul istaagno portfolio-du waxa weeyaan website inaad ku guratid wax qabadkaagii hore oo dhan iyo walibana hawlihii muhiimka ah ayaad qabatay haddii aad sida hawlihii oo dhan ku gur waxa laga yaabaa inaad in muhiim aanay jirin amba in aad qurux badan aanay jirin oo projects baad qabatay projects la qabanaya maxay projects waa mashaariicdii aad qabatay meherad ayaa imika waxaad u samaysay design stamp bannerkii business cardkii billboardskii sidoo kale meherad ayaad u samaysay video xayisiisa kamarad baad soo duubtay waa xirfadda mashruuc baad ku soo qaadatay mashruuca markaad u dhameysay company-ga inaad xayisiiskiisii u dhameyso u soo edit garayso ayaa waxaad soo furan doontaa inaad project cusub samayso video-ga aad soo gelisato cover page aad soo samaysto aad ku hoos qorto meherada hebel oo aan u dhameystiray projecta aan u sameeyay video-gii aan u sameeyay meherada hebel kadibna saasuu ku yahay projecti kadibna ku labaad baad soo gelinaysaa ku saddexaad dhammaan wax qabadkaagii hore oo dhan ee aad samaysay oo dhan ayaad meesha soo gelinaysaa oo laga dhex arkaya qofkii markuu soo galo wuxuu arkay inaad meherada u samaysay xayisiiska meherada kale aad wax qabadkaa u qabatay wixii aad video samaysay xayisiisyo hore samaysatay designs aad samaysay guryo aad nashqadaysay dhammaan wax qabadkaagii oo halkan ku qoran ayaad portfolio-da laga dhex arkaya sidoo kale portfolio-da waxa laga dhex arkaya meelihii aad hore uga soo shaqaysay shaqooyinkii aad hore u soo qabatay wax qabadkaagii hore shay walba waa laga dhex arkayaa portfolio-da sidoo kale waxaan iyaduba marna meesha ka maqnayn adigu cidda tahay iyo warbixin buuxda inuu isagu ka gudbiyo information-kaaga oo dhameystiran hadday number tahay hadday email tahay iyo hadday meel kale laga helayo tahayna portfolio-da waa lagu daraa haddaba waxa jira website-yo fara badan oo portfolio-da lagu samaysto laakiin se labada website ee ugu muhiimsan amba ugu tayada sare leh sidoo kalena ah free-ga ayaa waxay kala yihiin Behance iyo Wix. Behance waa shirkadda Adobe Creative Cloud oo inta badan soo saarta application-ada dunida ugu tayada sare leh ayaa soo saarta Behance waa website amba waa program amba waa system aad ku isticmaali karayso inaad projects-kaagii aad soo dhexgeliso iyagii oo real ah project-kaagan markaad soo dhexgelinayso iyagii oo real ah talo maxaa uga jeedaa waxaad Behance soo dhexgelin doontaa dhammaan wax qabadkaagii si aan horeba u soo sheegay
shay iyo step ayuu soo kugu soo dhigaya qaab uu qoran yahay weeyaan kadibna waxaad samayn doontaa inaad work historieskaaga buuxiso waqtigii aad shaqaynaysay timekaad u shaqaynaysay waxqabadkaagii aad qabatay waxaasoo dhan ayaa lagu dhex buuxinaya shaqadii aad qabatayna waad soo dhigaysaa oo la arkayo oo qofkii uu daawan karayo sidoo kale Wix iyaduna waa website builder amba waa website lagu dhex create garaysto website-yada in lagu dhex qoro Wix wuxuu ku saamaxayaa inaad website free aad samaysan karto oo aad ku dhex isticmaali karayso Wix gudihiisa sidoo kalena qofkii ka dalbada portfolio-daada uu si automatic aad ugu diri karayso Wix sidoo kale iyada muhiimadeedu waxay tahay iyadu waxay haysaa website dhammaystiran amba design garaysan kii un bad waxaad samaynaysaa inaad magacii ka bedelato sawirkiisina sawirkaagii ku bedelato meel walba shaygaagii aad ku bedelato labada program amba labada application ayaynu sectionkan iyo sectionka ku xiga aynu ku baran doonaa midna aynu kala qaadi doonaa walibana Behance waxay dheer tahay intaaba in aad ka dhexeli karayso shaqooyin online talo shaqooyinka online ka maxaa la yiraahdaa freelancer baa la yiraahdaa shaqooyinka online ka adiga oo maanta gurigaaga jooga computerkaagana isticmaalaya ayaa maanta waxaad ka shaqayn doontaa magaalooyinka dunida ugu weyn oo magaalada joogta ay ku jirto ma islahayd adoo Hargeysa jooga ayaad Mareykanka ka dhex shaqaysay walibana aad lacag heshay waa qayb kamid ah waxyaabaha aynu ku baran doono sectionkeena talo say u dhacaysaa bay dad badan isweydiinayaan xagee lacagta ku helaysaa wax badan oo xaqiiqa ayaan hortiina keeni doonaa waxaanaynu ka shaqayn doonaa markaynu portfolio-deeni hagaajino shayga loo yaqaano freelancer amba freelancerka ayaynu si fudud u macnayn doonaa casharkeenan maanta oo ahaa inaynu hordhac ka bixino sectionkan iyo walibana sectionka ku xiga oo aynu portfolio-da ku baranay oo dhammaystiran iyo walibana faa'iidooyinkeedaba halkaas ayuu noogu joogi doonaa casharka ku xiga intaanu isugu iman doonana waa aniga oo idin leh ku dadaala inaad portfolio qurux badan aad samaysan kartaan